waxaa toddobaadadii ugu dambeeyay soo gaadhaya magaalada laascaanood kala duwan oo loo fidinayo dadkii dhibaatooyinku ay ku soo gaadheen gudaha magaalada laascaanood ee ku jira cusbitaalka guud. jaaliyadaha ku dhaqan wadamada Ameerika, Yurub iyo Aasiya, Afrika ayaa waxay soo gaarsiinayeen lacago ay ugu talagaleen dadka dhibaatada sida ay wax uga tiri lahaayeen dhibaatadooda. jaaliyada degan wadanka Belgiumka ayaa ahayd tan ugu dambeysay ee lacag soo gaarsiisa. lacagtan oo dhammeyd $500 ayaa waxaa la siiyay 3 qof oo ugu liidata dadka ku dhibaataysan gudaha magaalada laascaanood. adeeqdan ayaa waxay wax badan ka bedeshaa nolosha dadka iyadoo nolol maalmeedkooda in fara badan aysan waxa ay cunaan aysan helin, xanuunada haya, nafaqa darrada iyo cuno la'aanta, dhaawacyada iyo dhibaatooyinka soo gaadha. dadka soo gaarsiinaya ayaa had iyo jeer waxa ay siiyaan dadkii loogu talagalay iyagoo ugu dhiiba dadka wakiilka ka ah ama waalidiintu carruurtii ay ka tageen. Sheekh Caldheere oo ka mid ah culimada gobolka Sool siiyaan dadkan lacagaha loogu soo hagaajiyo. waa kan isaga oo ka hadlaya رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. waxaan rabaa inaan idinku wareejiyo lacagdan $480. tan waxaa soo diray $500 jaaliyada dowdanka Belgium. waxaana igu soo hagaajiyay Maxamuud Cige oo garanaysaan. marka waxaan rabaa bacdaama nimanka dhaawac yihiin halkan aan joogno dhakhtar jiraan inaan lacagta idin wakiisho oo nin waliba uu gaarsiiyo dadka dhaawaca insha Allah taala. waxaan u baryaynaa inuu caafimaad siiyo. qodobada lacagta soo dirteen waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu meesha ka soo saaro wax ka khayr badan inuu ugu bedelo. haddana waxaan bilaabayaa lacagta inaan idinkoo ka wakiila idinku wareejiyo mid walba $160 haddii Ilaahay idan ka dhigo. Cabdillaahi aadan weli garaad $160. waxaa ku xiga Baari Shuba Jaamac. jazakallahu khair. waxaa ku xiga ninka la yiraahdo Maxamed Ducaale Maxamuud. jazakallahu khair. Caaqil Cabdinaasir waxa uu ka mid yahay dadkii ay soo gaarsiiyeen lacagta jaaliyada degan wadanka Belgiumka. waxa uuna ka hadlayaa lacagtii la soo gaarsiiyay waxaana ka mid ah hadalkiisii sida tan. ugu horreyn fadlan maxad Ilaahay baa iskale. maxad ka bacdi waxaan u mahadnaqaynaa dadkaas walaalaheena ee soo diray lacagtaas una soo deeqay dadkii ku dhaawacmay dagaalkii. dadkaas oo kala jooga Malaysia iyo meesha laga gaalkacyo dhakhtarka loo qaaday. halkana markii hore oo waxba laga qaban kari waayay dadkii dhaawac cusubay ahaayeen. marka Ilaahay waxaan uga baryaynaa meesha ay ka soo saareen inuu ugu bedelo wax ka khayr badan. meesha ay ka soo saareen iyagana uu uga buuxiyo ifiyaa karabana Ilaahay uu balaa xijaab uga dhigo. dadkaas xanuunsanayana dhaawacmana Ilaahay uu ku caafiyo. inta lacagtaasna waa u guddoonay. saddexdeeda halka fadhiya ayaa guddoonay. midkiiba $160 ayaa noo guddoonay. waan gaarsiinana insha Allah taala. Ilaahay يا شريح صراحة نقص يا ولا نحن كسب شو قولوا لي. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوز كذا بنيين خلنا هيدات كي تبرعات نشوف اللي إلى هاي مش كسر وحخير ما هو جديو. ذات كائن حمسنا دجال كلها وعمينا إلى هاي أنا هشاف يعني لأن هاي أنت عارفين أنا بشو بدنا نستخدم خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. inoo suurtageliyay maanta inay dadkaas walaalaha ay lacagtaas soo gaarsiiyaan dadka dhibaataysan ee dhaawacmay iyagu dadkii ugu cuslaa. anagoo dadkii heladoodii waxaan u guddoonay lacagta uu soo gaarsiiyay Cali Cabdinuur Xaashi oo dhan midkiiba $160. dadka lacagta soo dirana waxaan leenahay Ilaahay meeshaad ka soo saarteen wax ka khayr badan idinku bedelo. aad iyo aad baan ugu mahadnaq. Cabdikariin Olol oo barnaamijka caawinaada S24 TV magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool.